waxaa maanta lagu qabtay dugsiga sare ee gabdhaha magaalada Wajeer xafladda maalinta waalidiinta taas oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan. Qaar ka mid ah waalidiinta ka soo qayb gashay xafladdaasi ayaa hadallo kala duwan halkaasi ka soo jeediyeen. waxaan rabnaa iskuulkan gabdhaha anaga ay ku jiraan iyo carruurtaanada ay ku jiraan khayr la siiyo macallimiinta waxaan u baahnaan lahayn anagoo arrintaas u gudbinayna gooni ahaan countiga anaga u gudbinayna ee ay joogto gabadhii insha Allah taala gabanaha anaga xaaskiisa ay joogto khayr la siiyo waxaan u baahanahay iskuulka in darbi noogu la dhiso khayr la siiyo gabdhaha anaga security-gooda saxma الله هذا حياة قبل ياهو وحاجرة دعوة عن لبك سنة وديل ده وأنا برا دعوة عن لبك سنة وديل ده أنا صامرتي دعوة سنة أو صار دعوة أنا صامرتي دعوة عن فلاي أنا قفت دي واد المشاة دعوة عن بك سنة ودعوة لها وعليا مثل لبعض أنا قاعدين أنا مساكين ولا النهاية حتى أسهل الأمر في عن السوق اللي قاعد بيننا ما قالوا كده حاجة القرن قاعد العد أعمال وهاي بريا حوالي قربان القرب قاعد أبوه جرام قاعد أبوها العد وحناها يحاول تقدر ولا عليه. wasiirka waxbarashada ismaamulka Wajeer ayaa waalidiinta ku eedeeyay in ay ardayda ka warqabin. waxaan ileenahay sanadka ugu dambeeya cunuga ama foomfo aasiyahay ama stand 8 ya soo burarabtaan war gibra stand foomfo iyo head show way taam ugu dambeeyay report formkeeda meeqaasahay maamada la weydiinaa what can you do taam ugu dambeeya joogtaa maxaad ka qaban kartaa waxaa liinka rabaa dadaal aad oo caruurtiin aad ka daba gashaan oo performance as fiirsan marwada governor Wajeer Marwo Khayro ayaa halkaas ka hadashay dadweynaha ka soo qayb galay meeshan aad iyo aadan u faraxsanahay inaan in la joogo maanta farxad weyn ay tahay actually inaan baxay ahayd laakiin markay madamta principal ii imaade iyo board chairman I decided to stay because of you girls meeshan waxa laga hadlay wixii leen ka raba ee waxa anaga nagala raba waa laba shay haddaan nahay ani parents kiina nahay wixii nagala raba parents waa wax yar waxa nagala raba number 1 fees inaan la waynin number 2 nabadgelyadina number 3 wixii kale oo u baahatiin waxa kamid ah wixii gabdhaha gaari ay noo saariyeen wixii gabdhaha ugu tiragalnay waxaan wadaa 180 sanitary pads waxaan wadaa 1080 oo undergarments sidoo kale Marwo Khayro ayaa u ballan qaaday ardayda kaalmaha hore galeen in ay jaamacad ka bixin doonto Wajeer Girls Secondary School gabadhii keenta number 1 I will sponsor her up to the university Danola gabadhii keenta number 1 form 4 insha Allah taala oo number fiican keenta oo ee keenta hadday laba yihiin hadday saddex yihiin I will sponsor them ugu dambeyntii maamulaha dugsigaasi ayaa ka hadashay taariikhda dugsigaasi iyo waqtiga la aasaasay shule hii ya Wajir Girls ilianza mnamo mwaka wa 1983 with the support of the then DEO Mr. Ibrahim Hussein with only a population of 30 girls. But today I'm standing here proudly telling you kuwaambia kwamba tumekuwa kutoka wanafunzi 30 na leo hii shule hii ina wanafunzi 756.
si kastaba ha noqotee maalinta waalidiinta ee dugsiga sare gabdhaha ee magaalada Wajeer ayaa ah mid sanadle oo taas ay waalidiinta waqti la yeeshaan ardaydooda. Jawaahir Faarax, telefishanka Alfa, ismaamulka gudaha Wajeer.